بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa saxaafadda iyo ciidamada daraawiishta iyo maamulka kulli waan salaamayaa afrika boqolkaan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam bacdigeed ciidankan maanta wuxuu meeshaan isugu yimid guutada koowaad ee daraawiishta weeye maalin guur baa la yiraahdaa. kulley wax dhan baad wax ka duubteen ama meelo xun isugu timaadeen guutada maalin guur ciidamada daraawiishtu meelay joogaan ma waxaan leeyahay horta istaan bay hagaleen meelay joogaanba hadday cadaada jiraan hadday muusamareeb jiraan hadday gaalxay joogaan hadday abarwaaqa jiraan roob baa la sheegay waxaan leeyahay meelay joogaanba heegan ha galeen intaas waxaan raacinayaa ciidamada halkaa dhooban iyo kuwa maqanba dawladdu way ka warqabtaa gobolka mudug wax loo qabtay iyo hal ciidana oo laga qoray iyo hal ciidan oo darajo laga siiyey ma jiro tuulooyin cidlaana kun nin baa laga qoray ciidanka halkaan jooga madaxweynaha hadda jooga iyo midka imaan doona kulli way difaaci doonaa mid loo caga juglayn karaa ma jiro gobolka mudug sidii dawladdu u dhalatay hal askari oo laga mushaareeyay dawladdu ma sheegi karno hadday marka dawladdu isaga hayaa indha tuurtay annaguna waa iska indha tuurayna ha ogaato haddii kale dawladdu ha u timaado ciidankaan ha maalgeliso darajaday leeyihiin ha siiso mushaarkay leeyihiin ha siiso waxaana faralba ku ah madaxweyne mid la soo doortay mid hadda jooga inay difaaci doonaan cayaar loogu imaan jiri karin waa guubtadii koowaad meelay joogaanbana waa salaamayaa kuwa kalena istaan bay ha galeen waxaan inii sheegayaa marka maamulka laleeyahay dhuusamareeb baa laga dhisay baawur sheer baan ku qaybsanaa anugu maamulka waxaan ogaa anigoo mudug madaxweynaha iskale ceelbuur uu iska leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka caabudu waa leedahay madaxweyne ku-xigeenka cadaada baarlamaanka farmaajoon lagu sarreeyaa u saxiixay wax ka sokeeye ma ogolin haddeerana mudugna madaxweynehana lagama tartami karo waa in inta laysku yimaado heshiis damba la galaa haddii kale midka musharaxaha laga hari doona haddii la hayno waxaan marka inku salaamahayaa ciidankana aan leeyahay istaan bay gala madaxweynaha midka lasoo dooran doono iyo midka joogada difaaca dawladdana waa dhowraynaa annagu dawladda yacni cayrsan mayno waan dhowraynaa hab dhaqankay ku dhaqantaan kula dhaqmayno hadday dawladdu inta noo timaadana qaadato annaga iyo dawladdeeda iyo maamulkeeda iyo ciidankana waa raacayna hadday diidana meesheeday naga joogaysa waxbaan naga afar cabdibilo waxaan maqlayay 22aad baa la soo diray 22aad baa suuqa ay darsanta waa kala soocanayna waxaan taliyaha qaybta ahayn waa soo soocana kaligiis baa haray taliyaha qaybta waa haddii shidda la wada weeye waan kala soocanaynaa qolo dad gaara leh ma jidho wax walba waa isku darsanay intaas anugu inaan ka sii badiyana ma rabo iyo dulmi kale inaan sii galo ciidankana waxaan leeyahay meelaad joogtaanba heegan ahaada dalkiinana difaaca madaxdiinana difaaca mid imaan doona iyo mid muxuu ahay sheegay yani hadda taaganba kulli xoreeya oo difaac